ciidanka xasilinta caasimadda Muqdisho oo la kordhiyay tiradooda agabkooda iyo tayo ahaanba si ay cadowga nabadiidka Al-Shabaab ee doonaya inay gumaadaan shacabka Soomaaliyeed uga badbaadiyaan ayaa maanta lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Ciidankan oo ka kooban xoogga dalka, booliiska, nabad sugidda, asluubta iyo ciidamada AMISOM qaybta booliiska oo caawinaya ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa booqasho dhiirigelin ugu tagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasiiro, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo saraakiisha ciidanka qalabka sida. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed ayaa xusay in ciidanka qalabka sida ay ka go'an tahay gudashada waajibkooda shaqo. Operation-kan ra'iisul wasaare waa operation soconaya oo ku tala jirno in meeshan xarun noqoto habeen walbana ciidanka aad arkaysid inay ku duulaan amniga sugitaankiisa in ay muqaddas tahay inaan u adeegno ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ugu adeegno in ay naftooda iyo maalkooda badbaadino naga go'an. wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa xusay in ujeedada laga leeyahay xoojinta ciidanka xasilinta ay tahay dardargelinta go'aankii golaha wasiirada ee bishii May sanadkii 2017. wasiirka cadaaladda ayaa isna ka hadlay goobta aan magaalada lagu wadan doonin hubka waaweyn sida dabajeexa cabdibilaha iyo qoryaha kale waaweyn sida hadda go'aanka uu ka soo baxay 11 May sanadka hore 2017 golaha wasiirada soo saaray ra'iisul wasaare wuxuu ahaa qofka mas'uulka oo wadan karin 4 aaka wax ka badan. marka go'aankaas waxa uu meesha dabac soo galay laga bilaabo galabta halkaan joogno ra'iisul wasaare waxaan rabnaa inay mas'uuliyiinta u hoggaamsamaan amniga sugitaankiisa waa waajib qaran oo looga baahan yahay ciidamada inay qabtaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa sheegay in shacabka reer Muqdisho ay ka go'an tahay inay la shaqeeyaan ciidanka xasilinta caasimadda. waxaan u ballan qaadaynaa shacabka gobolkan inay garab taagan yihiin shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay ciidamada la shaqeeyaan si amniga xasilinta loo sugo kooxaha ugu dhuumanayana la isaga soo qabto. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa tilmaamay in ciidanka looga baahan yahay inay yeeshaan wada shaqeyn dhexdooda ah maadaama ay yihiin kuwa ay ku seexdaan shacabka Soomaaliyeed. ra'iisul wasaare Khayre ayaa intaa ku daray in madaxda qaranku ay garab taagan yihiin ciidanka qalabka sida isagoo kula dardaarmay inay si wanaagsan la dhaqmaan shacabka Soomaaliyeed marka ay ku jiraan hawlgallada waajibaadkooda shaqo ah. ciidamada halkan isugu yimid oo la yiraahdo ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho oo aan aragno inay u dhan yihiin agabkoodii oo u taagan inay ka shaqeeyaan amniga una huraan naftooda si ay u badbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed. laakiin marka hore inta aadan amniga sugina waa inaad adkaysaan wada shaqayntiin. qalabkan iyo qoryahan dhaqaalaha canshuurta ummadda Soomaaliyeed laga aruuriyay oo idinka leedinkugu dhiibay inaad amniga ku sugtaan waxaan idinka iyo taliyaashiinaba idinka codsanaynaa marka hore in laga foojignaado inaanay dhicin isku dhac ciidamo kala duwan. idinka la idinka rabaa inay shacabka Soomaaliyeed idinku hurdaan laakiin waxaan idinkula dardaarmayaa cidda aad u adeegaysaan waa shacabka Soomaaliyeed inta aadan wax kala qabanina waa inaad u turtaan shacabka Soomaaliyeed waa inaadan u nixina cadowga laakiin aad u naxdin shacabka in ciidan walba mushaarkooda ay dawladdu bixiso inaan diyaar u nahay inaan sii dardargelino in xuquuqda idinka dhiman leedin dhameystiro. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshe lagu xoojinayo amniga guud ee dalka gaar ahaan caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. ciidanka xasilintuna ay yihiin lafdhabarta xasilinta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo cadowgu doonayo inuu kala dagaalamo horumarka amniga midka dhaqaale. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.